xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakuji ee magaalada Nairobi ayaa ka codsaday Soomaalida ku nool dalka Kenya inay codkooda siiyaan maalinta Jimcaha ah oo ay dhici doonto doorashada isreebreebka xisbiyada dalkaasi Kenya. Faafahinta warkani waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdishakuur Faarax Igalle. iyadoo maalinta Jimcaha ay nagu soo aadan guud ahaan dalkani Kenya ay ka dhacayso doorashada isreebreebka xisbiyada dalkani Kenya ayaa xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii uu ka codsaday inay isu soo baxaan maalinta Jimcaha isla markaana ay u codeeyaan si uu mar kale u matalo iyaga. kursiga xildhibaannimo ee degmada Kamakuji ayaa sanadkani waxaa ku tartamaya ilaa 4 musharax oo uu Soomaali ka yahay xildhibaan Yuusuf Xasan oo 6 sano ay la soo dhaafay hayay xilka degmadani. waxaan doonayaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed bishan 22keeda April aan ku jirno maalinta Jimcaha inay dhacayso doorashada xisbiga Jubilee ee anigu ka tirsanahay goobaha codka laga ridanayana ay yihiin xaafadaha Kamakuji oo dhan oo Islii ka mid tahay. meesha aad codkaada ka ridan karto waxa weeyaan Islii High School, New Islii Primary School, St Teresa Primary School, Maina Wanjigi Secondary School iyo Islii Airport Primary School. shanta qaybood ayay dadka Soomaalidu u badan yihiin. anigu waxaan u sharaxanahay musharaxa xisbiga Jubilee ee baarlamaanka xaafadda Kamakuji. waxa ila taagan 3 qof oo kale oo Soomaali ahayn. marka walaaladayda Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay soo baxa nin idinka tirsan oo Soomaaliyeed codkiina u rita. maalintaasna garab baan idinka rabaa inaad ii hilisaan oo soo baxdaan sida anigu aan idinku dagaalamayay Soomaalinimadan idinku dagaalamayay hantideena aanu ilaalinayay midnimadeena aanu dagaalamayay ayaan aniguna maanta idinka codsanayaa doorashadaas inaad ii soo baxdaan oo aad garab isiisaan si la xadlana aad u soo baxdaan. waliba doorashadan tartankeeda aad iyo aad buu kulul yahay. 3 nin ee ila tartamaysa waa dad tiro badan bay ka dhasheen, dad fara badan baa u soo baxaya. marka idinkuna waa inaad muujisaan midnimadiina iyo xooggiina oo aad subaxda horeba inta markaad masaajid ka soo baxdaan salaada subaxnimo aad toos u gashaan meelaha codka laga ridanayo. maalintaasna ganacsatada Soomaaliyeed ee Islii dukaamada way xirayaan. wax dukaamo oo la furaya ma jiro ilaa laga soo baxayo doorashada markaad ka soo baxdaanna salaada duhurkii ee Jimcaha toos loo galaya. marka mar labaad maalinta doorashada ee reebka xisbiga Jubilee waa 22 April oo maalin Jimca ah. subaxnimadii hore Yuusuf Xasan weeyaan qofka aad u codeynaysaan xildhibaankiina joogtada ah. 3 kale qof oo aan Soomaali ahayn baa ila taagan. kursigan ma ina daafacdaan. Yuusuf Xasan iskama leh, idinkoo dhan baa leh. u soo baxa codkiina u rita soo rita haddana mar kalena u codeeya nin Soomaaliyeed idinla dhashay oo isku af iyo isku diin iyo isku dhaqanaatiin. Cabdishakuur Faarax Igalle, Universal TV, Nairobi.